waxaan rabaa dowladda inay aragto qofka dhibka wada oo deegaanka dhibka ku wada oo nabadgelyada aan u ogolayn madaxweynihii ugu dambeeyey degmuu siiyey waa loo diiday kii ka horreeyana santarkii qaydar santarka u soo baxaa la siiyey waa laga ceshaday bismillahi raxmaan raxiim allah sala ala sayidina maxamed aan muuse xaasha canshuur baan ahay meeshaan waxaan ka birayaa baaq nabadgeliyo ummadda soomaaliyeed meelay joogto marka hore waan salaamayaa faritoogta boqolkan ku salaamaa salaam bacdigeedna waxaan u dirayaa ummadda deegaanka joogtaan salaan labaad u diraa waxaana ka soo jeedinayaa baaq nabadeed in aan weeye hadalkaygu waxaan rabaa nabadgeliyo dalka iyo deegaankaba ummadda soomaaliyeed oo dhibaatadu qabanayso oo deegaanka ka dhibaataysan baaq nabadeed in aan ugu baaqaya intii dhintana waxaan ugu baaqayaa axadiisiitina allaha siiyo ina lillahi wa ina raajicuun waa la dhimanayaa laakiin maalinkii la arko si farxun in loo dhinto ama ehelkii walaalkii daris ku dhintaan mid qumana dhibaatadaas waxaan baaq u soo jeedinayaa nabadgelyo in lagu dabaalo dowladda iyo shacabkuba nabadgelyo inay ku dabaalaan waxaan sheegahayaa dadku soo u badan yahay nabad buu rabaa dad ama dowladda ama shacabka oo nabadgelyada aan rabin oo dhibaato furinahayaan way jiraan inay dowladdu aragto dadku u ogaadana waan rabaa aniguna waxaan rabaa nabadgeliyo deegaankaas in laga qabto wanaag iyo maslaxaan ka rabaa waxaan ka rabaa sidii ummaddu tahay dariska u aheedo walaalka u aheed inay mataqaa nabadgelyada looga helo inaan nabaddaas meel alla iyo meeshii mataqaanaa la gaarsiin karo wanaaggaas lagu gaarsiin karo la gaarsiinaan diyaar u ahay ummadda aan mas-uulka ka ahay waxaan rabaa ummadda mas-uulka ka ahana nabadgelyada sida ugu badan inaan gacanta ugu qabto islaamkana nabadgelyo ay ula deganaadaan ama ula joogaan waxaan leeyahay dadka hadlaya oo deegaanka ka hadlaya oo dalka ka hadlaya annaga intaasoo dowladooda soo martay oo soomaali ah intaas dadkii ka teganaa ee deegaanka lahaa ummaddaas ka mid ahaa cusubta laga qaadanhayey ayaan ahayn maanta in la yidhaahdo waa argagixiso dadkaasoo argagixisu ahaa heblow ka yimi wax loo malayn kara ma ahan dowladduna waa ogta dadka saas yeelayana waa dadka fidnada ka talinahaya oo ummadda kala isku dirahaya oo kala dhibaataynaya waxaan rabaa dowladda inay aragto qofka dhibka wada oo deegaanka dhibka ku wada oo nabadgelyada aan u ogolayn oo ummadda aan darisnimada u ogolayn oon horumarka u ogolayn oo xumaanta maahane aan wanaagga aan ka talinayn dowladdu inay aragto dadka wanaagga ka talin oo nabadda raba oo dowladdana ogol deegaankana ogol dariskana ogol walaalka ogol inaan la arkana waa u baahan yaho dadku saas loo kala aqoonsado annaga dadka lagu sheegahayo waa argagixisada deegaanka weligeed waddankeeda argagixisa laguma sheegin lagumana arag waxa uu ku hadlayo nin kale argagixiso weeye haddeera yimaadeen dalka ma lahan ninka ku hadlayaa mataqaanaa dowladduna way og tahay ilaahayna wuu og yahay anaguna waan ogna waxna ka dhibi mayso wax beenu waxba nina ka dhibi maayaan waxaan u baahanaha xal baan u baahanahay nabad baan u baahanahay in dagaal ka dhaco ma rabo in lagu xumaado ma rabo deegaanka waxaan rabaa nabadgelyadaasaan u rabaa dowladdu inay ka shaqaysaan rabaa inaan kala shaqaynaan rabaa qofkii qaldan in laga qabtaan rabaa kii gardaran in laga qabtaan rabaa kii dulli wada in laga qabtaan rabaa waxaan leeyahay in maanta la yidhaahdo meelo aanaan aqoon iyo dhibaato aanaan aqoon ficil ah ummadda loo soo jeediyo ama la maqashiiyo waa nasiib darro waa mataqaanaa waa xukuumaddu inay aragto dadka ka hadlahaya meelaha fog ka hadlahaya oo ummadda isku dirahaya oo dhibaatada samaynaya waxaan rabnaa madaxweynaha cagshar in iyo mataqaan hoggaanka nabadgelyada iyo jaranka ciidamada iyo gobolka iyo degmada iyo kilirkaba waxaan rabnaa dadka saasa oo dhibaatadana samaynaya beentana sheegaya dadkana isku dira oo dhibaatada wada hurinaya inay wax ka qabtaan qofkii nabad raba oo deegaankiisa nabad u raba oo dowladda nabad ka rabana inay arkaan waxaa kaloo hartay dadka deegaanka jooga qaarkiis waxaan ognahay aad og yahay dowladduna ogtahay ummadduna ogtahay deegaanka ay joogaan inay mataqaanaa dad dowladdu aysan ogeyn inay ka mid yihiin anigu hadda inaan dadka caayo ama dhibaato u sameeyo maadaama suldaanka iyo bargidir aan ahay nabadgelyana aan doonayo
inaan dadka wax ka sheego ama aan caayo ma aan rabo. Waxaan rabaa inaan mataqaanaa wixii jiran la isku sheegno. Dadkaas horumarka aan haysan oo caafimaadka haysan oo waxay mushaar ka qaataan aysan haysan oo degmada aan haysan oo meesha cidada taagan teer iyo cimrina taagnaa madaxweynihii ugu dambeeyey degmuu siiyey waa loo diiday kii ka horreeyana santarkii liaqaydar santarka u soo baxaa la siiyey waa laga ceshaday. waxaad moodaa dadan dowladda aan la dhalan oo aysan xukumin oo aan wax mataqaana aysan u ahayn ayaa meeshaas ka muuqda. waxaan leeyahay dowladdu ha aragto xuquuq la'aanta iyo dhibaatada ka jirta waddanka inay aragtana waan u baahanahay. nabadgelyana waan u baahanahay. nabadgelyada qofkii dhibaataynaya oo ama qabiilnimo u dhibaataynaya ama qoysnimo u dhibaataynayana inay dowladda aragtaan u baahanahay.